Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada saaxiibayaal, kuna soo dhawaada muuqaal cusub iyo qiso kale cusub. Saaxiibayaal, qisadeena caawa waxay dhacday sanadka markuu ahaa 2012, waxayna ka dhacday meel lagu magacaabo Qalqayliya oo ku taala dalka Falastiin. Maalin Talaado ah waxaa la waayay wiil yar oo 7 jir ah. Markii wiilkii maalintii ilaa iyo habeenkii ayaa la waasnaa. Hooyadiis iyo aabihiisa way raadiyeen, laakiin way waayeen. Meel aysan ka raadin ma lahan, laakiin waa suurtagali weys in ay wiilkooda helaan. Markii wiilkaana wiil yar oo 7 jir ah waaye, wax cadow ma lahan. Waa fahmi kartaa cunug yar oo 7 sano jira, wax cadow ma lahan. Maxaa keenay in la afduubto? Yuu wax ka dhexeeya cunugan? Marka waalidiintiisana waxay ahaayeen waalidiin wanaagsan. Aabihiisa, hooyadiisa, dad dhib badan oo mushkilad badan ma aysan ahayn. Xitaa haddii la dhihi lahaa waalidiintiisa ayaa wax hore u geystay, wax muusan jirin. Waalidiin nadiif ah oo gurigooda iska joogo, aabihi iska shaqaysanayo ayaa wiilkan dhaleen. Marka hooyadii aabihii sidii wiilkooda u raadinayeen way waayeen. Kadib arrintii waxay u sheegeen dariska, dadkii xaafadda. Waxay ka codsadeen in ay wiilkooda la raadiyaan. Dadkii dhan wiilkii ayay raadiyeen, meel walba waa laga raadiyey, laakiin wiilkan waa la heli waayey. Ugu dambeyn arrintii waxaa loo sheegay booliska. Booliskii iskan dhinaciisa ayuu raadin ka bilaabay, laakiin isagana wuu ku guuldareystay inuu cunugan helo. Adiga 2 maalin ayaa laga joogay. Wiilkan waa la waasnaa. Cid ogna ma lahan cunugan meeshuu aaday, ma dhinti, ma nool yahay, yaa afduubtay, intuu jiraa, xaaladiisa maxay tahay, cid ka warhaasa ma lahan. Adiga waxay arrinta sidaa ahaataba. Kadib booliska qof ayaa la soo xiriiray. Nin wadada socday ayaa meesha qashinka lagu shubo wuxuu ka arkay cabaayad dumar. Macnaha wuxuu arkay cabaayadan oo wax sidaan ugu duuduuban. Marka ninkii cabaayadda ayuu ka shakiyey, wuu u soo dhawaaday. Markuu soo dhawaaday waxaa soo galay wax xoogaa ur ah. Ninkii marka wuu sii dhawaaday, kadib wuxuu furay cabaayadda. Macnaha cabaayad gudaheeda wax ayaa ku jiray, iyada dhan way xirneed. Marka ninkii markuu u dhawaaday wuxuu isdhahay waxaan uraayo oo cabaayad ku jira bal fiiri. Ninkii cabaayaddii ayuu furay, wuxuuba ka arkay meed. Kadib ninkii ma uusan taaban, wuxuu u sheegay booliska. Booliskii ayaa imaaday. Kadib waxay arkeen in meedkan uu yahay cunug yar meedkiisa, da'diisana ay u dhexayso 5 ilaa 10 sano. Marka cunuganna wax aqoonsi iyo waxaasa way ka waayeen. Macnaa jeebkiisa iyo meesha ka fiiriyeen, aqoonsi iyo wuxuu wata ma lahan. Wayna fahmi waayeen cunugan meeshuu ka imaaday, cidda dhashay, meeshan wixii keenay way fahmi waayeen. Waxay bilaabeen marka booliskii in ay raadiyaan hadduu jiro qof cunugan raadinayo, hadduu jiro macnaha qof maalin uun la soo xiriiray booliska. Marka booliskii maalmo ka hor waxaa la soo xiriiray wiilkii la waasnaa aawe. Wiilka la waasnaa oo 7 jirka ahaa, hooyadiisa iyo aabihiisa 2 maalin ay raadinayeen. Marka ciddaa ayaa hore booliska ula soo xiriirtay. Marka booliska markay meydkan heleen, waxay waceen hooyadii aabihii wiilka dhalay. Marka booliskii way waceen, waxay dhaheen meydkan ayaa waxaa laga helay meesha qashinka lagu tuuro ama lagu shubo. Marka waxay dhaheen fiiriya wiilkan yar, wiilkiina miyaa mise? Hooyadii aabihii markay meydka fiiriyeen, waxay arkeen in meydkan uu yahay wiilkooda Maxamed Dhaamin. In uu biyaha ayay ogaadeen. Hooyadii aabihii meeshii ayay ku naxeen, way ku murugoodeen. Macnaha wiilkooda ay maalmahan raadinayeen, hadda waxay arkeen isagoo meed ah. Marka wiilkan meedkiisa wuxuu ahaa meed cabsi leh oo aad u argagax badan. Horta meedka jirkiisa caadi ayuu ahaa, jirkiisa kala nadiif ayuu ahaa, mala jarjarin, mala gogoonin. Laakiin midda yaab kale waxay tahay, horta markii la baaray wiilkan waxaa la ogaaday in
ceeji lagu dilay. Markii la ceejinayo wiilkan waa aragteen ma qof markii la ceejinayo afka inuu kala furo oo uu qayliyo. marka wiilkan markuu afka sidan u kala furay, qofka wiilkan dilay ilkihiisa ayaa wuxuu ku qabtay carabka oo qeyb carab ka mida ayuu goostaybo. subxaanallah. markuu wiilkan carabka gooyey, wiilkii wuu dhiig baxay, meeshii ayuuna ku dhintay. macnaa wiilkan 2 arin ayaa isoo darsantay. macnaa isagoo markii hore ceeji la qabtay oo sidaan ceeji lagu haayo oo uu carabkiisa banaanka usoo bixiyey, isagoo ceeji la haayo ayaa haddana waxaa laga jaray qeyb ka mida carabkiisa. marka wiilkii wuxuu u dhintay ceejidan la ceejinayay iyo dhiigbaxan uu dhiig baxay. markii la arkay arrintan foolxun, wiilkan in qaab aad u foolxun loo dilay, marka waxaa la isweydiiyey yaa waaye dilaaga, wiilkan qofka dilay yaa waaye, yaana waaye qofka cadowtinimadan u qabo oo wiilkan sidaan dhan u dilay. marka baaritaano badan ayaa la sameeyey, wax badan ayaa la raadiyey, laakiin waa la heli waayey qofka dilaaga. marka maalintii wiilkan la dilayay 3 maalin kadib waxay ku beekneed wiilkan la dilay Maxamed Daamin. Maxamed Daamin waxaa la wiilkeedu la dilay. wiilkan yar la dilay Maxamed, wiil in adeerkiisa ayaa 3 maalin kadib aroosi lahaa. macnaha maalinta wiilkan la dilay 3 maalin kadib wuxuu arooskiisa ahaa wiilkan yar la dilay wiila ilma adeer yihiin. ma fahanti? marka maadaama ay arrintan dhacday, wiilka in adeerkiisa la dilay, wiilkii kale isagana wuxuu go'aan ku gaaray in uu dib dhigo arooska. maadaama ay ta'sidaan imaatay, wuxuu dhahay dib haloo dhigo arooska. marka sida ayaa dhacday. marka dadkii xaafad degnaa iyo inta wiilkan kaseysay aaday u murugoodeen, aadayn ugu xumaadeen dhimashada wiilkan. sidoo kalena waxaa saameysay qaabka foosha xun ee wiilkan yar loo dilay. xitaa hadduu qof weyn ahaan lahaa macquul, laakiin waa wiil yaroo 7 jir ah. waa arrinta meesha taala waxay tahay muxuu galabsaday iyo wax ka haleeyey, maxaa keenay in sidaan loo dilo, sidee wax u jiraan, intay wax ka qaldan yihiin. dadkii wax badan way wareereen. marka saaxiibayaal, inta uu baaritaanka socday oo la baarayay wiilkan qofka dilay iyo waxyaabaha, marka meesha meydka laga helay, meydka dhinacii waxaa taalay bac yar oo ay warqad ku jirtay. marka qofka warqadda meesha dhigay, bacda ayuu dhinac ka jeexay, warqaddii ayuu sidaan u soo bixiyey. macnaa sababta oo u yeelay waxay tahay si loo arko warqadda loo qabto oo loo akhriyo. marka warqadda maxaa ku qornaa? warqadda waxaa ku qornaa, aniga waxaan ahay wiilka dhintay in adeerkiisa gabadha uu guursanayo ninka jeclaa ayaan ahay. maqli ah. warqadda waxaa lagu qoray, aniga waxaan ahay wiilka dhintay, macnaha cunugan dhinta 7 jirka ah, in adeerkiisa gabadha uu guursan lahaa jecelkeeda. macnaha wiilkan dhintay in adeerkiisa gabadha uu guursanayo ayaan aniga jecelahay, aniga iyo iyadana xiriir ayaa naga dhexeeyo. marka wuxuu dhahay cadowtinimo aan in adeerka u qabo ayaan waxaan u dilay wiilkan yar Maxamed. ma fahanteen? marka booliskii markay warqadda arkeen way qariyeen oo waxay haayeen ilaa iyo 4 maalin oo kale. macnaa wax waay arrin xasaasi ah waayo, markiiba mala sheegi karo. ma fahmino? kadib booliskii waxay arrintii qariyaanba, ugu dambeyn way sheegeen. marka kadib wiilkii guursanayay wuxuu aad ugu xumaaday gabadha uu guursanayay, sababtoo ah wuxuu ogaaday gabadhan in ay wiil xiriira leedahay, wiilkaas kale ay jeceshahay. sababta in adeerkiisa u dhinteen ay tahay iyada darteeda, sababtoo ah wiilkan sababta loo dilaa waxay tahay in wiilkaas kale uu jeclaa gabadhan. marka arrintaasna waxay mushkilad ka dhex abuurtay labada qoys. macnaa qoyska wiilka iyo gabadha isguursanayay ayay mushkilad ka dhex abuurtay. kadib qoyskii gabadha ayaa gabadhooda waxay ku dhaheen, yaa waaye wiilkan aad xiriirka leedihiin, yaa waaye wiilkan ku jecel,
oo wiilkan yar dilay. Gabadhii way dhaaratay, waxay dhahday wallaahi aniga qof ma jecli, mana jiro ayay dhahday qof aan aniga xiriir leenahay. laakiin qoyskeedii way ka diideen, waxay dhaheen annaga hanagu ciyaarin. waxay dhaheen sheeg qofka adiga xiriirka aad leedahay. waa kana warqadan isaga ayaa qoray, wiilkan isaga ayaa dilay. waxay dhaheen walaalay qofka waa taqaanaa, sheeg. adiga ma ahne qof kaloo yaqaana ma lahan. waxay dhaheen arrinta way isku cakiran tahay, ceeb ayaan dhexda uga fadhinaa, guurkaaga wuu dibdhacay waa aragtay. haddana waxay dhaheen siduu u dibdhacay loo ahaana ilaad arrinkan ka sheegto. mar gabadhii waxay aas ku saareen in ay sheegto ninkay isjecel yihiin ama ninkan ay xiriirka leeyihiin. laakiin gabadhii waxay ku adkaystay in uusan jirin qof ay xiriir leeyihiin. waxay dhahaan aniga qofaan jecelahay ma lahan, qof uu xiriir naga dhexeeyana ma jirto. adiga gabadhii markay saa ku adkaysatay, qoyskiinay cadays saarayeen, wiilkan dhinac uu ka xanaaqsan yahay. marka boolis gabadhan way qabteen, meel qaas ayay geeyeen, sababtoo nafteeda ayay u baqeen. macnaa waxaa laga yaabaa isdheheen in la dhibaateeyo ama qoyskii ama wiilkan qofu noo dhibaatay ayaa laga yaabaa isdheheen ee gabadhan meel qaas hala geeyey. mar gabadhii sidii ayaa loo waday oo waxaa la geeyey meel qaas ah. marka labadeedna waxay tuunka u jeediyeen gabadhan, oo gabadhan waxaa la dhahay ninka sheeg, adiga ayaa xiriir la lahayd, wiilkan noo dhintay adiga ayaa ka dambeeyey, sidaan waay kan. marka waa arki doonaa siday wax u jiraan, qofka wiilkan dilay, arrintan sida u jirto, kulli qisadeena ku dhex arki doonaa. ha iga tegin. adiga wixii sheekada sidaa u socotaba, waxaa imaadeen koox dumar oo dembi baarayaal ah. sababtay u imaadeen waxay tahay, kiiskan ayaa loo sheegay in wiil yaroo 7 jeer la dilay, arrintii ay cakiran tahay. tuhunka ugu badanna hadda gabadhan aroosadah loo jeedinayo, ma fahanti. marka iyaga ayaa sheekadii soo galay, maadaama arrinkii dumar loo jeedinayo. marka waxaa la dhahay dembi baarayaal oo dumar hala keeno, iyaga ayaa laga yaabaa sheekadan in ay xaliyaan. marka gabdhahan dembi baarayaasha waxaa ku jirtay gabar askariyad ah oo aad khatar u ahayd. markii faalkii kiiskan loo dhiibay wixii ay fiirisay, waxay aragtay warqadii oo laga soo helay meydka agtiisa. markii warqadii aqrisay oo ay fiirisay, waxay dhahday warqadan kas ayaa loo qoray. oo waxay dhahday qofka warqadan qoray wuxuu ugu talagalay in la ogaado in uu isaga dilaaga yahay. sidoo kale waxay dhahday aniga dareenkeyga wuxuu ii sheegayaa qofka warqadan qoray in uusan nin raga ahayn oo ay tahay qof dumar ah. maqlaya macnaha waxay ka wadaa warqadan nin raga ma qorin ee qof dumara ayaa qortay. macnaha warqada markii hore maxaa ku qornaa, aniga waxaan ahay wiilka jecel gabadha, saan ma ahayno. macnaha qofka warqada qoray wuxuu iska dhigayay sida in uu nin yahay, gabadha uu jeclaa laga guursaday, waxyaabaas ma aho. laakiin gabadhan askariyadda waxay dhahday warqadan qofka qoray nin rag maba ahan. oo waxay dhahday markaan qaabkeedii isteelkay u qorantahay aan fiiriyey, waxay dhahday qofta qortay waa qof dumar ah, laakiin waxay iska dhigaysaa nin si anagan ay noo qayaanto oo qofka dilka geystay aan ugu maleyna nin, sidaan aan iyadan ugu mashquulno. ma fahanteen? macnaha askariyaddan waxayba taagan tahay warqadan qof dumara ayaa qoratay, nin shaqo uu ku leeyahay ma lahan. sidoo kale gabadhan askariyadda waxay beri ka dhigtay gabadha aroosadda. waxay dhahday gabadhan aroosadana arrinkan wax ay ku leedahay ma lahan. kadib askariyadda waxay dhahday wiilka arooska ah ayaa laga yaabaa arrintan in uu wax un og yahay ama uu kulug leeyahay. sababtaa waxay dhahday qofka warqadan qoray wuxuu rabay in uu burburiyo guurka wiilkan. macnaha waxay dhahday qofka warqadan qoray xaasidnimo ay wiilkan u qab darteed ayay wiilkan u dishay, arrintan u samaysay. marka waxay dhahday wax un ayuu ka og yahay wiilka arooska. marka waxay dhahday wiilka arooska hala keeno.
adi ugu dambeyn waxaa la keenay wiilkii arooska ahna ina adeerka wiilka la dilay. maqlaya macnaa wiilkan arooska wiilkan yar la dilay iyo wiilkan arooska ilma adeero waaye. sheekada deema idin soo sheegay waa fahanteen mo. marka wiilkii arooska ayaa la keenay. markii la keenay kadib waxaa la weydiiyey ma jirta aa la dhahay qof xiriir aad hore u laheedeen ama hadab aad leedihiin. wiilkii xoogaha wuu istartaray, wuu aamusay. marka wuxuu dhahay waxaa jirta gabar lagu magacaabo Samra oo 20 jir ah oo hadda ka hor uu xiriir naga dhexeeyey. kadib waxaa la dhahay waayahay. marka waxaa lahay gabar intee degan tahay. wuxuu dhahay gabadha ma dheero, waa dariskeyga, gurigeena iyo gurigoodana hal guri oo keli ayaa noo dhexeeyo. marka wuxuu dhahay gabadha ayuu xiriir naga dhexeeyey, xiriirkeenan wuxuu socday 3 sano. marka wuxuu dhahay inta uu xiriirkeena socday waxaan doontay gabar kale oo ay igu qasbeen reerkeyga. wuxuu dhahay gabadha kale ayaan doontay, gabadhan xiriirkeeda iyo waxeedana meesha ayaan isaga ilaabay. sidoo kale wuxuu dhahay markii horeba gabadhan xiriirka aan la lahaa wuxuu iska ahaa mid oo iska normal oo iska baashaal ah, wax sida sii waaweynna ma uusan ahayn. marka wiilkan markuu intaa sheegay oo uu sheegay inuu gabadha xiriir lahaa, xiriirkoodu 3 sano socday, iyo isagoo xiriirka uu socdana gabadhan uu ka tagayo mid kale uu doontay, waxaa la dhahay waayahay. kadib waxaa la soo qabtay gabadhii uu xiriir ka dhexeeyey oo lagu magacaabay Samra. Samra markii sidaa loo soo qabtay iyadoo dhan way argagaxday, way cabsatay. kadibna iyadoo aan waxba la weydiin waxay dhahday aniga ayaa wax walba idin sheegayo. kadib booliskii waxay dhaheen waayahay, hay hadal, noo sheeg waxaad noo sheegayso. markaa kadib Samra waxay dhahday marka hore anigu waxaan ahay qof dambiile ah oo dembi ayaan galay. sidoo kale waxay dhahday wiilkii 7 jirka oo lagu magacaabo Maxamedna aniga ayaa gacanteeda ku dilay. horta waxay dhahday anigu waxaan xaasidnimo u qabay wiilkan, macnaa waxay ka wadaa wiilka arooska. isaga aan xaasidnimo u qabay. waxay dhahday waxaa naga dhexeeyey xiriir, waan jeclaa, laakiin waxay dhahday xiriirka ayuu iiga baxay, wuu iska daneystay. anigana waxay dhahday xaasidnimo isagaan u qabo iyo xanaaqan u xanaaqsanaa darteed waxaan rabay in aan ka aarsado guurkan hadda uu guursanayan in aan isaga dhanba ka joojiyo oo aan ka burburiyo. marka waxay dhahday wadooyin badan ayaan fiiriyey, laakiin waxba bay ii suurtageli waayeen. keliya waxay dhahday waxaa macquul ila noqotay in aan wiilkan yaro ilma adeerka ay yihiin aan dilo, isagana sidaa aan ugu aarsado. ma fahanteen? macnaa sababta ay wiilkan u dishay waxay tahay keliya in ay ka aarsato wiilkan kale oo ay horey xiriirka u lahaayeen, sidoo kalena ay ka burburiso guurkiisa. ma fahanteen? marka booliska waxay dhaheen waayahay, ee wiilkan siday u afduubatay, siday u dishay, arrintii noogu sheekeeyaa la dhahay. horta waxay dhahday wiilkan yar daris ayaan ahayn. waxay dhahday waan wacay, waxaan dhahay guriga igu imow, waxaan ku siinayaa shukulaati iyo waxa lagu ciyaaro. marka waxay dhahday wiilkii way imaaday. waxay dhahday wiilkan markuu ii imaaday qolkeyga ayaan geliyey, waxaan soo qaatay ayay dhahday mindiil ama tiish ayaan soo qaatay. kadibna waxay dhahday wiilkii ayaan ceeji qabtay. waxay dhahday markaan ceejiyey oo aan cabaar ceejida hayay, waxay dhahday wiilkii wuxuu kala furay afka, carabkiisa ayuu banaanka soo bixiyey. kadibna waxay dhahday carabka ayaan ka qaniinay oo aad ayaan ugu dhagay ilaa carabkiisa uu haaf go-ay. kadib waxay dhahday markaan carabka goostay wiilkii aad ay u dhigbaxayay. marka isagoo dhigbaxayo ayaan ceejida ku sii waday ilaa uu ka nafbaxay. macnaha gabadhan wiilkan markii hore way ceejisay, kadib carabka ayay ka goosay. markuu carabka wiilkan ka go-ay aaduu u dhigbaxay. marka isagoo dhigbaxay ayaadan sii ceejisay ilaa uu wiilkii ka nafbaxay.
kadib gabadhan waxay dhahday waxaan soo qabtay cabaay ii taalay, wiilkan ayaan ku riday. Waxay dhahday waxaan ku qaaday garabkeyga. kadib gabadhan waxay dhahday waxaan lugeeyey meel adiga ii jirto 100 mitir. meesha aan u lugeeyey dhahday meel qashinka lagu daadiyo ayaan wiilka ku soo tuuray. subxaanallah. kadib waxay dhahday waxaan cafin ka dalbaday maxamed, waa nin dhintayaa. waxay dhahday maxamed ayaan cafin ka dalbaday. waxaan dhahay maxamed iga raali noqo, adiga marwin inaan ku dilo, laakiin cadowtinimo aan u hayo ina adeerkaaga ayaan adiga kuu dilay si aan isaga ugu aarsado, guurkiisana aan u burburiyo. ma fahanteen? adiga gabadhii wax walba afkeeda ayay ka qiratay. sababta wiilkan maskiinkii u dashayna waxay ahayd kale inay ka aarsato wiilkan kale oo iyada xiriir ka dhexeeyey, laakiin ma jirin sabab kaloo cad oo ay wiilkan u dishay, cadowtinimo kale ka dhexeysay ma aysan jirin. maskiinkan maxamed waxaa loo dilay keliya argoosi, wax kaloo loo dilay ma lahan. marka jaceylkan xun oo faasiq ah waxaa naftiisa ku waayay wiilkan yar oo 7 jirka ah oo aan waxba dambi lahayn. adiga gabadhii markii wax walba qiratay waxaa la soo saaray maxkamad, waa la xukumay. laakiin kadib markuu xukunka dhacay, gabadhan waxay takfiifin ama xoogaa tanaasulitaan ka heshay familka wiilkan kale, oo waxaa la sheegay in xoogaha xukunkii laga qafiifiyey. laakiin waxay tiraysa malaha haddii la dili iyo hadday nooshahay iyo waxawaaye wax badan ma soo kordhinayso, sababtoo ah wiil iska maskiin ah waxa galeebsanin 7 jir ah hada soo baxayo ayay si foolxun u dishay. hooyadiisii aabihiisa iska murugaayeen. haddii hadda loo dili hadigan umaleynayo in wax badan usoo kordhinayo, laakiin tanaasulitaan iyo xoogaa cafin ayay iska heshay. sheekadeedana gabadhan meesha ayay ku dambeysay. marka saaxiibayaal, sheekadeena murugada badanta caawa waa inaga inta aynu muuqaalka dib ugu kulmi doono. amaano alleh. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.